diiwaanka hilin hayaan waa diiwaan lagu ururiyey maansooyinkii iyo heesihii abwaan cabdi maxamed amiin. diiwaankan oo dhowaan lagu daabacay dalka Sweden ayaa waxaa daabacay ururka isbahaysiga Soomaaliyeed ee ka jira dalka Sweden. buugga diiwaan hilin hayaan waxa uu ka kooban yahay 296 bog ama safxadood. waxaa ku diiwaan gashan oo ku qoran suugaantii abwaan cabdi maxamed amiin oo 4 marxaladood ama geedi socod loo qaybiyey, kuwaasoo kale ah marxalad ka bilaabanaysa 1962 kuna eg ilaa 1969 xilligii kacaanku u curtay. marxaladaasi waxa ay ka sheekaynaysaa dareenka dadka Soomaalidu sida uu ahaa markaas xilligii dawladdii rayidka ay maamulka gacanta ku haysay, dhibaatooyinkii doorashada ka dhashay iyo nolosha iyo xaaladuba sida ay ahayd. marxaladda labaad waxa weeye 1969 ilaa 1982 intaas oo abwaanku si aada uu kacaanka ula jaan qaaday heeso iyo suugaan kala gedisanna oo kacaanka uu ku ammaanayo ama marxaladda uga tarjamayo uu sameeyey. marxaladda saddexaad waxa ay ka bilaabanaysaa 1982 ilaa 1991 xilligaasi oo abwaanku uu jabhadihii mucaaridka ee markaa ka jiray dalka Itoobiya uu ku biiray. maansooyinkii uu tiriyey ayaa iyaguna ku diiwaan gashan buugga hilin hayaan. marxaladda afaraad ee suugaanta buugga hilin hayaan uu ka warramayo waxaa weeye burburkii Soomaaliya. marxaladaasi oo ka bilaabata 1991 ilaa 2006 wuxuuna uga warramayaa marxalad kasta abwaanku xaaladda Soomaaliya halka ay maraysay siyaasad ahaan iyo nololba. cabdi maxamed amiin waxa uu ku dhashay magaalada Gabiley 1935 magaaladaasi oo ku taalla inta u dhaxaysa magaalada Hargeysa iyo magaalada Boorame. dhalashada cabdi maxamed amiin waa qiyaas sida uu ii xaqiijiyey. cabdi maxamed amiin waxa uu ku barbaaray kuna hana qaaday sida uu sheegay kuna reeraystay magaalada Muqdisho. 1953 ayaa cabdi maxamed amiin waxa uu fanka ku bilaabay magaalada Hargeysa. cabdi maxamed amiin ayaa diiwaanka hilin hayaan marka uu soo baxay kadib waxa aan kula kulmay magaalada Jabuuti ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. dabadeedna waxa aan wax ka weydiiyey bal buuggan hilin hayaan ee lagu ururiyey maansooyinkiisa iyo heesihiisii marxaladaha kala gedisan soo maray in uu wax nooga bidhaamiyo. soo dhawow. waad mahadsantahay yuusuf, aad iyo aad baan idinku mahadinayaa mahadad BBC tiin yani waqtigan iyo fursaddan aad siiseen bal inaan wuxuun taariikhda waxa kale oo aan ku faraxsanahay in wixii aan tiriyey wixii lumay ama maxaan ku dhahdaa si kale u baxay mooyaane aan isku soo ururiyey oo wuxuun taariikhaho bal suugaantii aan ka tago maxaan ku dhahdaa markii tii alla ii timaado iyadana waa mid aan ku faraxsanahay, ilaahayna uga mahadinayo igu simay waqtigaasi. haddaan maxaan ku dhahdaa wax yar saxitaan aan sameeyo waqtigii aan ka tegey maxaan ku dhahdaa 82 ee aan jabhadaha ku biiray. jabhadaha ruuxooda dhexdoodii baa 2 marxaladood noqday iyaduna, laakiin waan isku qaaday. waan u imaan doonaa middaasi. aanu ku bilowna cabdiyo marka bal heestan caanka noqotay ee 1962 aad curisay ee aad ku bilowday marxaladda dawladdii rayidka geediga wadaay bal inooga taariikhee. ka taariikheey ummadda Soomaaliyeed markay gobonimada doonaysay inagu dadkay guuraayno harbaadiyo dawladnimo waxba kama inaan noqonin. dadkii markaa hoggaanka hayay ee inoo maxaan ku dhahaa madaxda ahaa xisbiyadii kamid ahaa SNL USP SYL yani ahaa ee gobonimada doonka labada dhinacba dadka waxay ugu khudbayn jireen oo loo sheegi jiray dawladnimo haddaan qaadano in dhibaato oo dhammi inaga dhammaanayso.
oo barwaaqo la degayo oo kulli la noolaanayo inaan maxaan ku dhahay ka reebaadihii biyaha helayo oo xagga helayo oo yani nin waliba aynu sida raha wadhaad ahaynayno waa garta ma inagaran macnaha dawladnimo waataan dawladnimadii qaadanay 62 markay tahay ayaa durba la yidhi hey waar siduu sidii maahe 2 sano kadib ilaa dad fudud baynu nahay gaajaysan oo ordaye maxaa dawladnimadii ku dhacay markiiba dadkii wakhtigaa joogay ee abwaaniinta ahaa ama waxa la alifayey hadalla badan baa laga yidhi masalan qaasim in la yidhaahdo caanaho maxaan ku dhahday waxaa lahaa wuxuu yidhi isma doorinkaan shalay diriya daarta kii galaya sidii bay dacaha qalladii uga daloolaan sidii baa dagaaroo biyaha loo dagooriya sidii bay u dabagoostay haradii doollo macnaha wax horumaraho la sameeyeyba lama arko ma jirto halkiin baan taagannahay nin kalena wuxuu yidhi bal muxuu macnayo ay tara ministerkaan doortay halkaas ayay ka bilaabatay ninka la yidhaahdo cali sugulle isaguna hees butriye la yidhahdo hanaloo degoy waanu daalanahe hanaloo degoy halkaas ayaan annaa heestan geediga wadaay aan kaga daray oo aan leeyahay aynu hore u soconno yaynaan deginoo qalbi jabinoo maxaan ku dhaha hadda durba isiifine geediga ha la wado bal inoogu dhufo hadda heestaa geediga wadaay sidii loo qaadi jiray waaya waxay odhanaysay nin gumaysi raacay isagoo go'ayee gobonnimo nin doonay guulba u dambaysee guulaystayaal geediga wadaay dadkiina la gudboonaaday wuxuu u guuraye nin qabiil gargaarsaday meel la gaadhi maayee guulaystayaal geediga wadaay gurgurka iyo heeryada guudweyne saaroo rayskii aan gaadhnay guduntana afeeyo guulaystayaal geediga wadaay iyadoo gugii da'ay gabannada aad leedahay oon laguma gooye jiilaal gawaanahe guulaystayaal geediga wadaay isticmaar gaboobiyo midka haatan soo galay waa niyii kula yeelisibki wixii nala gudboonaa uga gaabsan maynee guulaystayaal geediga wadaay innagaa go'aankii libta gaadhin doonno goblada iyo dhaantada ku garaacan doonnee guulaystayaal geediga wadaay waxaa loo qaadi jiray dadkii nala gudboonaa dayaxuu u guuray nin qabiil gargaarsaday meel la gaadhi maaye guulaystayaalow geediga wadaay raadiyaha laga saari jiray raadi muqdisho iyo adaa qaadi jirtay qaadi jiray ha halkaa ayaad marxaladdaa ka sii ambaqaaday markaasaa waxaad jirta oo buugga iiga dhex muuqataa kuwa daanka buuxsaday hees la yidhaahdo oo 1965tii aad iyadana ay ku qoran tahay in aad curisay sidee bay ahayd ayaduna dee waxay ahayd halkaa unbay ka socotayoo waa tii maxaanku dhahday dadkii qalbi jabay oo dee dal yaroo faqiirhan waxba haysanin oo inta calan loo taagay la yidhi dawlad baa tiina socda oo nin waliba filanaya sidii intii yareeda talyaaniga ahayd ama ingiriiska ahayd ee magaalooyinka joogtay say u noolayd inuu u noolaado ayaa salka dhulka lagu dhuftay ilaa socon mayse marka iyada iyo kuwa horay inoo gubay haddana ha u gargaarina labaduba waxay ahayd leegadii leegaday ku socotaa iyo dawladdii sibilka ahayd ha kuwii hore inoo gubay haddana ha u gargaarina waa doorashadii marka kamaan hore waxay ahayd kuwa daanka buuxsadii ma ka daadinaynaa shicbii hawdanteennii innagaa daboolee dad xaqiisa waayaa dunida ma joogee innaga isdilaynee ma dagaalgelaynaa kuwa daanka buuxsaday ma ka daadinaynaa duruqaanka leegada ku dawoobi mayne ya duruqaanka leegada ku dawoobi mayne dulmigii horeetaa lagu duudsiyayaa innaga isdilaynee ma dagaalgelaynaa kuwa daanka buuxsaday ma ka daadinaynaa waa kaa dadkeennii gaajada la daadsane dumarkii iyo carruurtii dalanbaabi'ayee innaga isdilaynee ma dagaalgelaynaa kuwa daanka buuxsaday ma ka daadinaynaa waxay ahayd kicin bay ahayd haa ruux hilib dad cunaya deris lagama yeeshee waa marka etoobiyan ka hadlaya deris lagama yeeshee bahal aan ku daynayn dusha laguma qaatee innaga isdilaynee ma dagaalgelaynaa kuwa daanka buuxsaday ma ka daadinaynaa marka waa ka daadintaasun baan joognay waxaa tahay yacni jabhadka caan ahoo dee markaa jabhadina ma jirin laakiin iskiiska caano ah ayaan ahaa weli ha laga daadiyadaasu malayna kuwa daanka buuxsaday haddii aanu u gudubno marxaladda labaad ee hillin hayaan buuggan la yidhaah hillin hayaan qaybtiisa labaad ee 1969kii ilaa 1980 ee dhalashadii kacaanka kadib ah
bal ka waran dareenkaagu markaas heestan aad ku bilowday marxaladaas oo la yidhaah xaaraan quutayaashii bal ka waran iyadana dareenkaagu siduu ahaa markaa haddee dareenkayga waxbaad ka garanay tii ka horraysay heesihii ka horreeyey ee kuwa daanka buuxsaday ma ka daadinaynaa iyo kuwii hore inoo gubay haddana haw gargaarina iyo geediga waday sow halgan may ahayn socda soo may ahayn kacaanku markuu dhashay anigu waxaan u arkayey dad badan oo soomaaliyeed ay u arkayeen inay tahay geedigii soomaalidu doonaysay hayaankii barwaaqada ina geyn lahaa ayaa loo arkayey halkaasaan ka bilaabay markaasaa tiri markaasaan idhahay heestan tiriyey xaaraan quutayaashii xaqiraaye shacabka kuwii naga xoreeyow xamdi baan idiin naqaynaa xaasidkiiyo qabiilkiiyo kuwii xukunka baas waday soomaali kala xidhay haddaad naga xorayseen xamdi baan idiin naqaynaa kuwii aan xishoodkiiyo garanayn xuquuqdee xaabsaday waxeennii haddaad naga xorayseen xamdi baan idiin naqaynaa adaa ku luuqaysay maya fanaaniintii waa beri ayaa qaadaysay lagu bilaabay waad kacansan taha markaas marka waxaa kaloo marxaladda iyadana halkan ka muuqata caynaanka heesta la yidhaahdo caynaanka haay cimriga jiryo bal ka waran iyadana wallaahi dee yuusufa waxa weeye dee marka sheekada saa la ysugu xidho warba uma baahna dheriga karka maxaa ka keenay baa idhi kulaylka soo maa anigu waxaan soo ogaa oon soo joogay dawladdii daakhiliga ahayd waxaan soo joogay tii maxaan ku dhahda xornimada aynu qaadannay intaba kar baa jiray kar dabkaa kar dherigaa karkarayey marka kulaylkii wixii warkaa jiray ayaa iga keenay waxa nimanka askartaana ay ku marmarsoodeen sidaasay ahayd waxaad leedahay marka waddadii caddayd cagta saarnee ku carraabiye cimrigii jiryow caynaanka haay ninkaad leedahay cimrigii jiryow caynaanka haay keebuu ahaa markaa maxamed siyaad allah u naxariistee haa ilan dal walba qaacid buu leeyahay yani wuxuu leeyahay hoggaan buu leeyahay qaacidkii ciidanka ayuu ahaa maxamed siyaad buu ahaa marka heestan markaa samays kadib maxamed siyaad ma saraagteen waa saragnay haye muxuu kugu yidhi iyo kadibba wax badan baanu saragnay markaa muxuu kugu yidhi marka afisyoonu deganaa suuxun baa anoo jooga tiyaatarkii la yeedho la yidhi waxaa ku doonaya madaxweynihii maahayn wuxuu ahaa golihii sare kacaanka guddoomiyihii golihii sare kacaanka ayaa maxaan ku dhahdaa ku doonaya baawur baa laygu qaado meeshii baa lay geeyey dee ismaana noqoonin isna ima oqoon ana ma oqoon dee aqoonigu raadiyaha iga maqli jiray igu mooyaan anna inuu ciidamada iyo qolooyinkaa haysto waanun maqli jiray dee waxba isumaanaan sheegin waan isasalaanayuun waad mahadsan tahay buu yidhi wax kale ma odhanay heestana waa soo baxda markaa haa way soo baxday haa waad mahadsan tahay buu yidhi adaa mudan baa dhe anu waajibkuuma gudanayahay waxba siyaadaha maan samayn fanaanintaan lamid ahay marka inuu intaa ku yidhaahbu kuugu yeedhay intaasuu igu yeedhay iyo dee malaha inaan anigu wax kale ku dardaro oo sida soomaalidu maxaankuda u badan tahay aan idhaahdo waxisi iyo caynkanaan ahay oo guri melihi iyo wax ma haysto malaha inaan idhahdo waxaasu filanayay waxna maad odhan ma odhan halkaa uma dhaqaaqin uma dhaafin iyo kadibba xataa dhowr jeer aanu isaragnay weligay wax ma weydiisan waa hagaag waxaa jirta cabdi maxamed amiin marxaladdan kale maadaama kacaankii sidaa ula jaan qaaday oo hawshii geedigii la waday caynaanka hayna tiri iyo kuwo kaleoo ka dambeeyo halkan buugga ku qoran intaba haddana waad ka soo horjeesatay oo kacaandiid ayaad noqotay waxaa la galay marxalad kale oo aad jabhadaynaysid ood etoobiya oo wax badan aad ka sheegtay dib ugu noqotay bal ka warran iyadana hadde wallaahi dee sidaan kuu sheegay waxaa dhacday un lamood noqon soo weyday anuu kacaanka waxaan u haystay yani ama dad badan oo soomaaliyeedba ay u haysteen inuu dhibaatadii jirtay lagaga baxayo oo dee brograam wanaagsan oo fiican oo qurux badanna way soo dhigeen laakiin haddee sidii soomaalida ku dhici jirtay raadkii unbay dib ugu noqdeen raad arooriya dib looma raacana waa tii la yidhi marka anugu dee waxaan u haystaa oon qabay waxaa maxaan ku dhaha dad baa yidhaahdaa waagii hore saasaa tidhi haddana waa diiday haddana maxaa marka waxaan idhi anigu konturaad baan wada gallay kacaanka konturaad ayaan wada gallay konturaadaasi waxay ahayd in dalka wax wanaagsan laga qabto in dalka la hormariyo in dadku sinnaado in dadku guul gaadho in dalku barwaaq konturaadaasaan wada gallay tiina fashal bay ku dhammaatay dee iyagii baa ka baxay oo qabyaaladii dib ugu noqday iyo qaybqaybintii marka etoobiya tagtay dabadeedna heestan aad ku beddelaysid waddadii caddayd ayaad samaysay oo waxaad tidhi
waddadii caddayd cirif dhaaftay oo cayn kale u rogtee cimrigii dhacyow caynaanka daay halkeed ku tirsatan herar markaan soo galay ayaan herar ku tiriyey sababta aan ku tiriyeyna wiilaan dhalay baa lahaa oo markaa ila socday oo 10 jir ah oon hore u sii kaxeeyey ayaa lahaa wiilkayna barnaamijka ilaahay kacaan yar buu iska ahaaye markaan hudheel herar la yidhaahdo markaan oona la dejiyey aan joogno habeenkii cashaynay ayuu yidhi aaba waxaan ku weydiinayaa xamar markaad joogtay waxaad odhan jirtay caynaan haye haddana maxaad odhan wiilkii baa kule wiilkii baa ileeyahay markaasaan ka war haddaan idhahdo caynaanka daa markaasuu yidhi intuu sidaa i eegay dee labadaba adaa yidhi iska dhe saasay ku timid marka dee waana wax loojiga moogtahay sideed ugu luuqays mid cusubintaas maala waa tii hore uun waddadii caddayd cidhif dhaaftayo cayn kale u rogtee cimrigii dhacyo cimrigii dhacyo caynaanka daa noo sii daa markii horena maxaa tiri cimrigii jiryo waddadii caddayd cagta saarnaye ku caraabiyo qurux badnayd ah cimrigii jiryo cimrigii jiryo caynaankahay hay weligahay hay marka taadiya jeer lagu dhalo waxa weeye weligahaydaas waa qof inaad uu dhimanayaa baa lidhi waa run laakiin yani jacaylkii ihaye iyo dareenkaagaad cabiraysa oo muujinaysa inuu qofku dhimanayo waa ogaa cabdi maxamed amiin markii jabhadihii aad iskugu tagteen Itoobiya mucaaridna noqoteen maxaa suugaanood ku beerisay marka dhanka jabhadaha oo iyagana aad ku muujinaysid halgankooda dee markii aan tagay maxaan ku dhahdaa jabhadihii ku biiray haddii aanu qori ma qaadanayno qori ma ridaynin laakiin qorigii afkaan ridayey marka waxay u badnayd uun inaan jabhadiintii ama raggii maxaan ku dhahdaa markaa dagaalamayey inaan guubaabiyo una sheego waxa waajibka ah waxa jirta maahmaah la yidhaahdo askariga intaanad barin qoriga siduu u rido waxa la baraa marka hore inaad barta ay tahay cidda uu ku ridayo iyo waxa uu ku ridayo marka anoo halkaa ka tallaabo qaadaya waxyaabahan tusaya waxaa ka mid ahaa war waa dagaalamaynaa laakiin maxaa ka dambayn doona dagaalanee gadaalna ballada xusuusta oo maxaan u soconnaa maxaan doonaynaa himiladii marka waxaa ka mid ahaa midaan idhaahdo halgankeennu waa labo waa 1983 baad curisay heesta waa halgankeennu waa labo jabhadiinta heegane hubkoodii cabbaystow geesiyaasha heegane qarannimada hiilkee dhiigga u huraayee naftooda u hibeeyow raaxa u hilmaamee nasasho uga hadhayow hunnuhunnuhi hadal maaha himbiriirsina waxarag maaha innagoo hal keliyaah cadow soo hagoogto ina kala haleeye danaystaaba ka hor taga hilibkooda haadkiiyo waraabow ha haaligo naxariis hal jilic iyo raxmad yaanay naga helin kow halgankeennu waa laba aan kala hadhin waa hal iyo nirigteed mid haddaan hilmaanno aan laysareer wadin habeenkeen dab weeyaan hoobaaq dalooshiya hataq lagu dhac weeyaan hibashiyaha hiya way la hagooga weeyaan hadalkaasi iga gunud raadkii horeetiyo hilinkii waxyeellada ku haloosi weeyaan haddaynaan fikerin ummad yahay hadday tahay goortaan ishagilayn wadar loo halgami lahaa been laga hortegi lahaa runta himiladeeduna hawraarta keliya ku heshiinno noqon lahayd halgankeennu waa labo haddadaa aan joognee horarkaa la dirirkii hubka aanu qaadniyo waxa ay hadhow noqon waa lama huraankii taariikho hore iyo waayaha balhaybsada waxa ila hoogtay afrikada halkaa dhigay waan loo horsee tegin qorraxda ila hooyataa subaxdiina hadashaa hawow ku doodaa hadba meel duqaysaa dawladaha hiifta iyadoon halkudhegiyo meel laga hayaba garan yaa hawshooda ugu weyn ee la isku haystaa waa ina halkama jire waa gaajo hoygeed cudur heeryadiisii jaali haamihiisii hubso oo waxay tahay haybeebu kala saar hurunhurunno kala ood gumaysiga habkiisii waa waxaan inagu dagaalanno way socotaaye dibjir hooyaan qabinoo
gidaarada habeenkii hadba meesha uu helo hurda ugu macaan tahay nafku haynta mooyee ha qablii waxba u cunin hanfigiiyo kulaylaha hamadayga dhaxantuna guudkiisa ku habsaday ayaa hiisho kii baday inuu gacanta hoorsado qabiil buu ugu hilinaya derbigaan u seexdaa waana gaajaysan yahay hareertii ka jooga isna dhowr habeen qaday hambada isla boobaan derbiga isla hoydaan waa u cadow hareeriye leh hoostuu ka hiifaa waa heer ma aan garan hiilkay wadaagaan kaa derbiga ay wada seexdaan ee gaajada wada qabaan baa col u ah oo reer hebela oo isku danta yihiin haa hiilkay wadaagaan meel kale ha eegine wixii hore la soo maray midhihii ka soo hadhay waa waxaynu haynaa haaraheedii muuqdaan hafeeftii xanuunkiiyo hanfigeedii joognaa shacbiyahow hadday tahay shacbiyahow wax hubiyo hilib yaan lagaa dhigan hadba kooxa raadani sida bahalu hiigaan heensadaan dhammaystaan marka ay ka haagaan haamaha dalooshaan halkaa kaga dhaqaaqaan abaalkaa hilmaamaan bal hadda yaa halidage alla ha dago mar labaadii heerana waa habacsanaantay iyo hoorinimaday maahmaa horaa tidhi hadal lays yidhahdin ma dartaaran baa hadhay geesigaa halgamayow hammigaaga koru qaad himilada ku naallo shalaydii horeetiyo haddeertaa aan joogniyo waxaan hiigsanaynaba hiyigaaga kula dood hurdadaada ku ilow go'aan huban ka soo saar dalkaagana isku halle sidaa baa tiri sidaa baan ku idhi waxaa kaloo ii muuqda mid aad leedahay markii aad jabhadihii niyadjabka la kulantay oo bela dhacday sida aad xustay in aad curisay tix kale oo aad leedahay maxaan hog abeeso galay ayaad taana curisay maxay ku saabsanayd waxay ku saabsanayd sida caadada ah weligeedba markaa waxaa jabhadaha lagu sheegaa ay dibadaha u baxaan dee kolle markay dalkooda ka tagaan dalkanunbay dabada la galaan waataan etoobiya dabada la gallay annaga ruuxa iyagu sida aan hadda nahay umbaan markaana la ahaa wax siyaasadahoo cad oo noo qeexan oo aynu heshiis ku nahay ma jirin maxamed siyaad in la rido unbaad heshiis ku ahaydeen maxaa ka dambayn doona maxaa ka horrayn doona midna ma annaan garanaynin marka tii baa la isku qabtay waa hadda tana sheegayay halgankeenna waa laba aan lahaa yaynaan dagaalamaynoona maxaa ka dambeeya marka dagaal baa ka dhacay waa la isqabqabsaday waa la isdilay waa la ismagacayseeyey anigu dad la dilay ayaan ka tirsanaa waan iska noolahay un haddee sideed uga tirsanayd waxaan uga tirsanay annagoo 3 nin ah ayaa dee say ahayd mooyaane inna la dilo kolley go'aan lagu soo gaadhay cid ku gaadhay garan mayne adiga iyo labada kale ayay kala ahaayeen cabdiraxmaan caydiid allahu naxariistee iyo abuukar xaaji maxamed xuseen waa 13 leegada ninkii ka midka ah wiilkiisa xaaji maxamed xuseen xaamud ayay ahayn hortayday ku dhinteen anna xabaddu way ku dhacday dhaawac baa la iiga tegey laakiin dhimashaa la iiga tegey laakiin waan dhaawacmay waad isla socoteen 3 tayada isla soconnay xagga dambuubaana laga yimid dhow sidaasay ahayd oo jabhaddiinna dhexdeeday ahayd inay jabhadda dhexdeedii ahayd eed waa ku jirtaa iyo inay nabad sugiddii ministe ahayd garan mayno nabad isku mid bay ahaayeene kolley un halkaas unbay eedda u badnayd ayaan maxaan ku dhahay dee marka caynkaa noqotay waan ka tagnay etoobiya yamantii koonfureed markaa maxaan ku dhahdaay cadan ee anti wadaagga ahayd baa maxaan ku dhahdaa na qaaday meel la dejisay magangelyana siisay waa markaan tirinaya marka adiga iyo yay magangelyada siinaysaa yemen waa aniga waa cumar salaad waa maxaan ku idhaahdayey cumar salaad cilmi aaminadii cabdiraxmaan caydiid qabay rag baan eenlay nin la yidhaahdo cabdulaahi eenlay markaasaa maansadaan aad curisay maansadooyinka ugu badan waxaan ku tiriyey cadan marka halkanaan marka ku tilmaamaya maxaan hogabeesa galay maxaan halaqyo ugu tegey maxay mixi ay heleen maxaan waabay hirqaday maxaan geerida ka hadhay marka heesta waa la luuqaynayaa jiib baa dhexda ku jirtee hobeey caashaq huursanoowa hobeey hurdan taaganoowa hobeey ubax ii hiraywa hobeey guul aan hubaywa maxaan keligay hamiyey kuwii hiil iigu xigay hareertay maxaan ka dayey muxuu igu dumay habeen maxay ilma hibiqi tidhi hobeey caashaq huursanoowa hobeey hurdan taaganoowa ubax ii hiraywa guul aan hubaywa maxay tale iga hab tidhi maxaan hiil mooday jiin sidii caanaha hirqaday
habsaamay oon hadalka gabay u hoyday meel aanan hubin waad gartay halkaa marka luqdeedu sidanay ahayd anaa qaadaya muusikada waxay u timaayey fanaaniin reecadmeeda gabdho reecadmeeda baa luqda ila jiibinayay oo aad soomaali un moodo marka maxay ahayd maxaan hog abeesa galay maxaan halaqyo ugu tegey maxay micyoy heleen maxaan waabay hirqaday oo maxaan geerida ka hadhay hobeeya hobey hobeeya hobeeya hobey hobeeya hobey caashaquursanowa hobey hurdan taaganowa hobey ubax ii hiraywa hobey guul aan hoboywa hobeeya hobey hobeeya hobeeya hobey hobeeya maxaan keligay hamiyey kuwii hiil iigu xigay hareertay maxaan ka dayey muxuu igu dumay habeen oo maxay ilmo hibiiqi tidhiyey hobeeya saaxiibadii hortayda anoo arkaya hortayda ku dhinteen saasay ahayd أخبره تنفاذ نوى
وهجاج markaas marxaladda kale waxa weeye marxaladdii Land Cruiser waa markii aan cadan ka noqotay oo xamar u noqotay oo Maxamed Siyaad iyo aad haddana dib u soo noqotay markaas aad u soo noqotay sideed marka cadan kaga tagtay cadan waxaan kaga tagay laba sano ku dhawaad baan meesha joognay waxaan ka qabanaan weynay anaga ruuxayga frustration baan nagu dhacay cadanada iska kululoo maxaan ku dhahaa badda casaho deynanu qol yaroo qabojeelo ku jirno oo waxba qabano analysis iska sameeyno baaye waxa qaban kari weynay fadhi ku dirir baad ku ururteen baanu noqonay waxaana la yiraahdaa abwaan bulshadiisa aan ku dhex jirin waa kalluun aan bad ku jirin ka dhex baxay abwaanku bulshada dhexdeedu abwaan ku yahay oo wax ku curin kara oo wax ku nool yahay oo wax ku curin kara maskaxdu kaga iman karta marka kaliya baa fikra waxaan idhi sidaan si maaha alla ilaahay isbiime go'aan baad qaadat go'aan baan qaaday kaliya isbiime kafanta madaxa ku xidho
qonsulkii markaa joogay cadan baan telefoon u diray soomaaliga ahaa joogaade waa kaatana sancaad jooga cabdiraxmaan cumindaa la yidhahdaa ayaan telefoon u diray waxaan idhi safir may garanaysaa cabdi maxamed uu dhaxay waxaan rabaa inaan dalkii ku noqdo qalqaali sidaan ku tegi lahaa tow buu yidhi iyo 2 casho dhowr casho markuu 2 casho joogay basho xamar buu tegey fariintii buu geeyey wuu soo noqday soo kacay baa la yidhi soo dir diyaarad buu iga saaray cadanoo halkan waxaa nimid markii mingista xayla maryam iyo maxamed siyaad allahu naxariistee ay halkan ku shirayeen jabuuti ku shirayeen ee lalahaa dagaalka aan joojino oo jabhadaha aan kala celino oo magaciisa aan celino oo mingisoo jabhadaha jooji annaguna xaggan aan joojino wakhtigaas ayaa la igu soo beego halkan aan maxamed siyaad isku aragno waxaan maqlay inaad xamar ku noqonayso jaal xamar baan ku noqonaya maxamed siyaad baa kugu leh markaasuu yidhi dee annagu geediga waa furray oo kacaandiid baanu noqonay oo dib baanu u noqonay oo waxaan aaminsanahay ogyahay moogtahay dee maxaad ka doonaysaa markaas maya jaala geedi la furay ma jiro halkanba geedigii baad ku wadaa waxaad u timid jabuutiba waa caynkaas haddaad run sheegaysa berri aan israacna buu yidhi diyaaradda ila raac berri maya baan ku raaci maayo maxaa yeelay intaasoo sannadood 7 sannadood baan reerkayga iyo carruurtayda xaaskayga ka maqnaa anoo faramadhan u tegi maayo jabuuti baan shaxshaxaadayaa iska kay dhaaf waa imanayaaye weli layma aaminsanay moogtahay kii safiirka ahaba u yeedho wuxuu yidhi waa ninkan hadda si wuxuu reerkii wax ugu ibibiyo waxoogaa safiirkan waa midka caandiida inkaar qabo inuu baxsadaba doonaya uga baxsaday meeshay leedhay waxoogaa yaroo 2 kun oo farana ayuu siiyey anaa lacag badan baa moodaya dee 100 kun oo faran haddana waa layla taliyo waxaa la yidhi ha ka hadhin rag aanu qaraabanahay iyo kuwa saaxiibanay baa yidhi inaad raacadaa ku ron soo midoonaysa waad ka tagto mid dakhala bayt al-Abu Sufyaan fahuwa aamin baa la yidhi madaxweynaha adoo socda haddaad tagto nabad sugudu ku taaban mayso marka raac haddaad kaa dhasay wala subaxdii baa halkaa ka raacay isagu baawur buu halkan ku maray oo annagu iyo ilaaladiisii qaar ka mid iyo wariyaashii iyo diyaarad baan raacno Hargeysa waataanu ka tagnay waa marka Hargeysa mudaharaadka lagaga samaynayo markaa darada xoog la dhaxturku ka dhacay marka xamar baa la tagtay ma Hargeysa la igu reebay markaa marada soo galay ma ogtahay waa la ii taliyaa markan Hargeysa la igu reebay dhowr casho nabad sugida soo warwareysata la yidhi dhowr cashaan joogayo markaa ka bacdi waa diyaaradda isana xamar baan tagay xamar markaa aeroboortka ka degay baa nabad sugida iga hortimid oo baawar baa lagu qaado xagee lagu geeyaa baa la yidhi may waxa la yidhi waxaan ku geynaynaa Jubba hotel Jubba ma yaani Jubba la geyn ma yaani Jubba xaga doonaya guri baan leeyahay xaaskayga baa jooga reerkayga baa jooga gurigayga hal la geeyo miyaa la xabisaya waa la geeyo gurigii baa la geeyay laakiin waxa sharti la iga dhigay subax walba waxaad tagtaa meesha xarunta ciidamada dhabarjabinta iska xaadiri oo dekada agteeda ahaayo in la oran jiray soo walba waan tagaa waa la wareystaa maxaad u tagtay maxaad soo noqotay maxaad u diiday maxaad u dhoo adigu de waxaasu ana waxaan u tagay wixii dalka ka dhacay kaanka maxaad u taageertay waxaan u taageeray inuu la fiicnaa adigu wixii baad uga sheekaysay markaas murtidii kuugu horeysay magaaladii baan anu intaan indhaynaya mugtay waxa teatarkiisa lagu celiyo inkaar qabaa marka magaaladii baan indhaynayay Jubbadii baan tagay Jubbadii waxaan tagay cidla oo burburtay oo cidi deganayn xalima khaliifa deganayd Allahu naxariisto oo markaa ayana Dubai meelaha laga keenay kaligeed ayaa deganayd hodeel Jubba magaaladii nalkii go'an yahay biyihii go'an yihiin magaalada Langaruuserkana shan qabooshan siida sida ariga uu yaacayo halkaan baan ka bilaabay marka waxaad curisay heestii Langaruuser gado iyo Jubba marka waxaan sameynay markii hore waan duubnay si gaar ah u duubnay marka barnaamij la oran jiray barnaamijka warfaafinta lagu xuso ayaa la sameeyay barnaamijkii ciyaaraha ku jiray waxba ku jiray magaciisa ku jiray sida caadiga ahayd heesan dhexda lagaga soo daray aan ku soo daray lama ogeyn waxaana ka shaqeeyay oo aad uga shaqeeyo maxaan ku dhahdaa hawsha mahadeeda leh maareeyihii tiyaatarka markaa Cabdi Xaashi Cabdullaahi hadda xildhibaanka tiyaatarka isku fikrad ahayna isku raay rag ayaga aan isla ahay isaga ka shaqeeyay dhowr fanaan baan u yeedhnay oo
war heestan qabo waana lagu wada diiday kulli saadaa tidhi anaa qaadaya waad u sharaxdeen cabdi baa u sharaxay anuu ismaan arag cabdi xaasha u sharaxay qaad buuri heestan sharaf baa ay kuwa tahay marka waxay la socotay koox dhoofaysay oo abudabi iyo inay wax ka soo dhigaan kooxdii markii dambana baxsatay ee ingiriiska gashay ayay la socotay way ka hadhay waa tahay bay tidhi barnaamijkii baa la sameeyey wax la daawadaba wax muusikadii la garaacaba wax la nini madaxweynihii waa yimid yani xafladii tiyaatarka ha u fadhiyaa wixii dee sidii caadiga ahayd ba tiyaatarkii la buuxaa waftiyada xaafadaha iyo beledii wixii baa la soo buuxiyey heestan shab soo tidhi waxaa jooga wariyayaal Mareykan iyo reer Yurub iyo magaciisa oo markii furfurinta iyo dhaqaalaha iyo waxa laga hadlay heestan shab soo tidhi 3 jeer baa lagu celiyay way qaataa bis dadku waxay moodayaan inuu maxamed sayd raalli ka yahay oo isagu soo noloshoodina way ka hadlaysaa langaru sargado gurigo mugdiya biyuhuna go'een gabnadu jasheen adoo halkaasay dee heestii anuma ayay halkaasay ayay heestii dee kala baxday markaas ma ku celiyey gurigoo mugdiya biyihii go'een magaciisi go'een xagga go'een xagga langaru sargado soo bari galay langaru sargado wixiisa mood gominaad ku tahay geeska afrikow jubba lama qaadin habeenkaa cajilatay laakiin ku duubnay qarax baa dhacay tiyaatarkii mug maxamed saad baa masraxa istaagay tollaay ma maanta hortayda heesa gacantiida laga qaaday wuu istaagay wuu khudbeeyey anuu ma jooga markaa gurigaan isku soo xidho waa dhuuntay gurigii baan ku jiraa mayan xataa tiyaatarka dee halkaasay ka bilaabatay ba cabdulqaadir xaaji iyo ninkii la odhan jiray cabdullaahi mire oo markaa shaqaalaha madax ka ahaa iyo cabdullaahi xaaji ninkan la yidhaahdo cabdulqaadir xaaji masalle oo dee abaabulkii labadii haragga kala baxay kacandiid ina tiin iyo inadaan caqli lahayn baanan kala garanayn sidee heesta loogu daray ilaa way naga eegeene markii waagu bariyey maxaa dhacay marka magaaladii dee mawar baa jira baate qarax magaaladii ma maqasheen annaguna cajiladii noo duwan oo diyaarsan ayaanu magaalada ku sii daynay waxay ahayd cajilada ugu gadid badan taariikhda cajilada siyaasiyan maxaa laydinku sameeyey marka aniga saadaba waana la xidhay dee waana la xidhay nabad suguddaana lagu xidhay hana la xidhay maxaa ka dambeeyey heesta nafteedii baa laga sii daayey oo laga faallooday fanaan nacaynkaas oo rayigooda cabiray oo sidaas oo magaciisu doonaya ayaa la xidhxidhay maxamed saydna wuxuu leeyahay haddaan wax furfuraya wax hagaajinaya xisbiyaan samaynaya intaasoo telegaraam iyo intaasoo bilaa ku soo dhacday ada wax badan maanaan xidhnay dee libaa xilka beelay uun buude markaa iska aha dagaaladuna waa socdaan marka waxba nama yeeli karin inta badan waana la sii daayey hase ku noqon inaan la duun waayo ku noqon mayna dee
Wa man ku tacaniyo garashada